السلام عليكم. adigaan kula hadlaya walaal insha Allah. Adiga ayaan kula hadlaya haddii Ilaahay idmo. Waxaan rabaa inaan insha Allah aan ku dhaho walaalka ama walaasha ku jirto waxaad ogaataa ku jirto maartay TikTok-ga. Walaasha iyo walaalka ku dhex jiro TikTok-ga iskaga dhex jir iskaga dhex boodbood laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego arrinka uu yahay haddaad Soomaali tahay ama Soomaaliyeed aad tahay waxaan jeclaan lahaa inaad waxaad ogaataa wax la yiraahdo qabyaaladda aad joojisid oo qalbigaaga aad ka gooysid insha Allah qalbigaaga aad ka gooysid walaal sababta qabyaaladdu waa wax quruna waa wax aad u falxun walaalka oo muslina iyo walaasha muslimad iyaad ku nacab tahay qabiilkii uu hooy Ilaahay uu ka dhaliyay maartay uu ka khalqay marka waa ceeb Soomaaliin soo ilma dareemisid in ceeb ay tahay in qabyaalad la isku cuno oo la isku waxaad ogaataa la isku cunsuridayo waa discrimination oo kale weeyaan waa dulnimo weeyaanoo waa dulmi subxaanallah marka fariintan adiga iskale walaashay ku dhex jiro TikTok-ga ama ku dhex jiro Facebook-ga ama meesha doonta ha joogto qabyaaladda joojiya insha Allah aan qabiilka kulligeena aan nacno qabyaaladda aan nacno walaalayaal waayo waatan 30 sano 40 sano dalkeeni quruxda badnaa Soomaaliya kala gogoysay oo kala xumaysay aan ilaalino wax la yiraahdo midnimada Soomaaliyeed United Somalia aan ilaalino walaalayaal waa walaasha waa walaalka isku diin baad tihiin isku dhaqan baad tihiin isku luqad baad tihiin isku dal baad haysataan caanaha wada cabtaan geeljirawda tihiin ma garatay reer baadiya ayaan wada nahay maxaad u naci walaalka iyo walaasha intaasaan rabaa videoga share gareeya qabyaaladda waxaan leenahay down dhulka ha gashaan leenahay qabyaaladda ilaahay ummadda Soomaaliyeed ha xifdiyo waan baxayaa insha Allah hawlayaan leeyahay haddii Ilaahay idmo marka insha Allah waxaan oranayaa walaalayaal Allah ka cabso meel kasta joogtid Allah ka cabso videoga share gareeya oo comment-kiina hoos ku soo qora insha Allah